maanta bishu tahay 19 bishii labaad 2022 waxa uu farxada wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda inuu soo dhamaaday hawl muddo dheer soo qaadatay oo ah in la hirgeliyo isku xidhka shirkadaha ama waxa la yiraahdaa interconnection-ka oo macaamiisha u suurtagelinaysa in ay wici karaan qof kasta oo sita telefoonka gacanta ee dalka ka diiwaan gashan muddo soo qaadatay wasaarahaan waxaan ku bilownay inaanu horta u sameeyno xeer nidaamiye anagoo ka talagelina shirkadaha isgaarsiinta Telesom iyo Somtel sidoo kalena heshiis baan diyaarinay halka markaa waxaan uga mahadnaqayaa labada shirkadood runtii muujiyay dadaal iyo tanimo xeerka isgaarsiintu uu ku waajibinayaa shirkadaha in interconnection hirgalo laakiin caqabado fara badan hore u jiray oo suuqa isgaarsiinta Soomaaliya sadku ka warqabteen muddo soo socday awgeed bay wax badan ka tanaasuleen marka aad baad ugu mahadsantihiin kulay hawl badan baynu qabanay laba goor hore aan u malayn mar 2006 bay ahayd la isku xidho uu istaagay 2011 mar buu jiray wada hadal aan dhameystirmin laakiin tan anagoo taa ka dawlayna waxaan ugu talagalnay in shuruucdii iyo xeerarkii waxba baan dhameystirno maanta alxamdulillah wada hadallo dheer labada shirkadood iyo wasaaraddu meel bay soo gaareen maanta waxaan u bilownay waa Telesom iyo Somtel isku xidhkan shirkadaha kale isgaarsiintuna waxay mari doonaan wadadaas ay mari doonaan haddii la yiraahdo marka aad baad mahadsantihiin anagoo wasaarad ahaan waa noo farxad waana xaq muwaadiniinta ay leeyihiin oo meel walba maalulba nala weydiin jiray cidda ugu badnayd ee nala weydiin jirtayna baarlamaanka ahaayeen waa sababtaan maanta aan ugu soo marti qaadnay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada marka alxamdulillah maanta way noo dhameystirantay heshiiskani wuxuu ku hirgeli doonaa muddo 40 maalmood wuxuu u baahan yahay la diyaariyo dhinacii farsamada dhinacii xisaabaadka iyo waxyaabo kale oo laga maarmaana ugu badnaan 40 maalmood gudahood buu ku hirgeli doonaa